uu ka soo hormuuqday saxaafaddu isagoo farxad ka muujiyay kulankii ay 2-0 ku xasuuqeen dhigooda Newcastle United kulankan ayaana ka tirsanaa kulamada 12aad xil ciyaareedkan ee horyaalka Premier League Marcus Rashford ayaa kadib markii uu kulanka soo idlaaday waxa uu la hadlay shabakada BBC waxa uu markaas kaga warbixiyay in uu kulankan ahaa mid aad u adag Newcastle United ay tahay koox aad u wanaagsan waxaan la ciyaarnay koox adag waxa markaas nagu qaadatay waqti ka dheer sida aan doonaynay si aan gool u gaarno ayuu yiri Marcus Rashford laakiin waa in aan sii wadnaa sida aan kaga shaqayn lahayn qaadashada 3 dhibcood kulan kasta soo aadanayaan ciyaari doono si aan markaas ugu dagaalano in 4 sare ee ka qayb gali karta tartanka Champions League xil ciyaareedka soo aadan waxaan doonaynaa inaan horumariyo ayuu yiri qaab ciyaareedkayga si gaar ah inaan u horumariyo ayaan doonayaa isla markaana aan in badan caawiyo kooxdiisa Manchester United si kastaba Romelu Lukaku ayaa dhaliyay goolka koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United daqiiqadii 64aad halka sidoo kale goolka labaad uu dhaliyay Marcus Rashford kaasoo markaasi loo aqoonsaday inuu ahaa xidigii ugu fiicnaa garoonka kulankii xalay ee Newcastle United Manchester United ayaa ilaa iyo haatan waxay heshay 38 dhibcood waxayna markaasi wali fadhidaa booska lixaad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League dhinaca kale